ramadaantan waxaad ku arki doontaa goobtan ilmo in aan soo dejinayno tusaale ah 30 mawduuc oo gaar u ah anshaxa guryaheena oo aan ugu talagalnay maalin kasta inta aynu ku jirno bisha Ramadaan. Mawduucyadan ayaa ah kuwo ku saabsan anshaxa akhlaaqda ama qiyamka aynu leenahay. Waxaana ugu talagalnay in ay caruurta yaryar ka qayb qaataan soo gudbintiisa iyo soo jeedintiisaba. Anshaxa 19aad waa shaqo walba waan ku farayaraysanaa. Bar ilmahaaga oo ku bilow shaqooyinka isaga oo yar. Aad ayay u fududahay inaad dhaqan fiican ku soo barbaariso ilmaha. Tusaale ahaan u diid ilmahaaga inuu yeesho caadooyinka xunxun sida caajiska faraha badan. Uga sheekee shaqooyinka adag ee aad ku guulaysatay. Kana dhig shaqo qabashadu in ay xiiso badan tahay. Iskuul tegidda ula dhaqan sidii shaqo oo kale. Ogow waxaad tahay macalinka koowaad ee ilmahaagu leeyahay. Shako kasta waan ku farayaraysana. Iftiimi mustaqbalka ilmahaaga. Waxaad ku iftiimisaa baridda anshaxa wanaagsan ee diinteena iyo dhaqankeenaba. Si aad uga dhisto caqliga oo aad u koriso dadnimadiisa iyo damiirkiisaba.